ee dalka Mareykanka waxay isugu yimaadeen inay soo jeediyaan soona gudbiyaan warmurtiyeed ku aadan taageerada iyo dhiirigelinta ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira argagixisada Daesh ee si fulinimo leh ugu dhumaalaysanaya buraha bariga Soomaaliya. aan ku bilaabay ee warmurtiyeedka waxa inoo soo jeedinaya ama inoo akhrinaya madaxa xarunta cilmi baarista ee Bayaan Research Center Sheikh Maxamed Cabdi Shucayb. culimada Soomaaliyeed ee dalka Mareykan ku nool waxay hambalyo taageero iyo dhiirigelin u dirayaan ciidamada xoogga Puntland, maamulka, madaxda iyo guud ahaan bulshada. culimadu waxay reer Puntland ku taageerayaan howlgalka ciribtirka argagixisada ay kula halgamayaan kooxaha sharwadayaasha ah, gaar ahaan ururka Daesh ee dhibaatooyinka iyo xasilooni darrada ka wada deegaanada Puntland iyo guud ahaan geyiga Soomaaliyeed. culimadu waxay bogaadinayaan dadaalka nafhurnimada leh ee ciidamadu ugu jiraan ciribtirka kooxda argagixisada ah ee halista ku ah diinta, dalka, dadka iyo nabadda guud. in argagixisada Daesh iyo kuwa la midka ah ay yihiin khawaarij, in lala dagaalamana ay tahay waajib diini ah. anaga culimo haddaan nahay Mareykanka waxaan u ducaynaynaa ciidamada u taagan reer Puntland iyo maamulkooda iyo shacabka reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood ee muslimiinta ah in Ilaahay ku guuleeyo safaynta nimanka khawaarijta ah. khawaarijta nabigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa majuus waa kilaabu ahli nnaar. xadiis aad maqasheen iyo kilaabu ahli nnaar, ahlu naarka kilaabtiisi waa eeyaha ahlu naarka waa. howlgalka iyo baraaruga iyo geesinimada iyo nafti hurnimada ay wadaan ciidamada Puntland ee ay ku qaadeen nimanka Daesh khawaarijta ah ee wadanka iyo diinta iyo shacabka Puntland fasahaadinayay. runtii waan dhiirigelinaynaa, waana garab istaagaynaa. waxaana maanta meeshaan u nimid inaan dhahno waa idin garab taagannahay, waa idin taageersannahay, waa ku faraxsannahay waxa iyo shaqada aad qabateen. shaqadaana hala sii xoojiyo. walaalayaal waxay wadaan kooxaha sharwadayaalku waa fasaadka ay quraanku tilmaamayo. dadkii diintii baa la rabaa in laga kharibo oo la fasahaadiyo, noloshii baa la fasahaadiyo, dadkii baa la leenayaa, xoolihii baa baad iyo xoog lagu qaadanayaa, jidadkii baa dadkii loo istaagayaa, nabadgelyadiiba ayaa la kharibaya oo dadkii cabsi baa lagu beerayaa. waxaan u dardaarmaynaa madaxda Soomaaliyeed heer ka soo yihiin gaaran dawlad deegaanka Puntland hadda dagaal qaawan ku qaaday nimanka isaga in dagaalka lagu mitido, in dagaalka meel la saaro, in kooxahaas oo la baabiin aan dagaalka la istaajinin. marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, culimada, dawladda federaalka ah, xoogga dalka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed meel walba oo joogaanba in ay runtii hiil iyo hoolba ay la garab istaagaan. si kasta ay kugu sheegtaan inay toosan yihiin, si kasta ay kugu tilmaamaan inay diinta islaamka ay u adeegayaan, si kasta ay maaragtay isku dayaan inay ay brainwash kugu sameeyaan, maskaxda ka qaribaan, waa inaad ogaataa inay Daesh iyo al-shabaab ay yihiin firqooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka digay. dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan khawaarij nama kala jecla, gobollo aan kala deganahayna ma kala jecla, qabaa'il aan nahayna ma kala jecla, maamullo aan leenahayna ma kala jecla. waa cadow noo midaysan. magaca ay leeyihiinna waa magaca khawaarijta oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam u baxshay. marka sida ay noogu midaysan yihiin oo meel walba noogu dilayaan oo xoolaheena meel walba u qaadanayaan oo dadkeena ay u dhibaateynayaan, waa inaan ugu midowno oon iskugu tagno oo dagaalka lagula jiro maanta aanan lagu fiirsanin. maxaan ku iraahdaa Puntland aan lagu fiirsanin ee garab lagu siiyo ciidamada iyo shacabka Puntland, in garab lagu siiyo iyo maamulka intaba. haddii kuwa lagula dagaalamayo jubbooyinka iyo gobollada koonfureedna in ayagana saasoo kale garab lagu siiyo cid walba oo la dagaalamaysa. nimankaas cid kasta oo wax kasta ku taageerta, tala ku taageerta, war ku taageerta,
dhaqaale ku taageerta ayaka ayay la mid yihiin waa sida ayaka loola dagaalamayo waa in loola dagaalamaa waana xaaraan nimankaas ay shay oo lagu kaalmeyn wax kasta oo lagu kaalmeynayo culimada Soomaaliyeed ee Puntland joogta gaar ahaan in ay kacaan istaagaan walibana ay xooga saaraan wacyigelinta dhalinyarada iyo afkaarta guracan qaabkii loo radin lahaa masaajidda laga muxaadareeyo nadawaad la qabto dhalinyarada duruus loo akhriyo casharo la bilaabo manhajka saxda ah ummadda la baro maxaa khaldan maxaa sahlan la fahansiiyo haddii dadka laga aamuso oo dhalinyarada faraha laga qaado oo wacyigelin aysan dhicin dee ninka dhalinyarada waxaa laga yaabaa adduunye ahaanba loogu yeero oo halkaa u dhaqaale ka raadiyo shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin markan intay garab isqabsadaan inay cadowga waddanka saaraan cadowga haddaan waddanka laga saarin Soomaaliya meel uma socoto saas u fadhiisa halkaas ku rakaadaysa marka waxaan u baahannahay in garabka la isqabsado waxaan bogaadinaynaa runtii maamulka iyo ciidamada Puntland oo runtii tallaabo fiican qaaday nimanka Daacish oo dhibaatada geysanaya oo dadkii baabi'inaya inay u kaceen oo dagaal hadda fiican ku wadaan waxaan runtii codsanaynaa culimada dhan codsanayaan in la garab la siiyo hadday noqoto dowladda federaalka iyo hadday noqoto shacabka Soomaaliya meel kasta joogaan nimankaas waa firqad Allah muslimiintii ka baxay kuna baxay in la iska dhiciyana waa bannaan tahay oo loola diriro fikir ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan military ahaan waxaan ku darayaa kaliya qofkii nimanka dhaqaale siiya iyagoo og in wax ku dilayaan wax ku akhrinayaan waa la dambi sharcan ma banaana nabiguna waa nacalada calayhi salaatu wasalaam la'ana Allahu man aawa muhdithan kama qala calayhi salaatu wasalaam